inaan farxiyo kaba yar magaceeda soo qaato inay isla markii iga soo hadasho tiraahdo video iga soo duubto ay tiraahdo baba ay soo doontay in maadaama aan magaceeda ku soo hoos dhuuntay maadaama aan ayadii ka dhiganay isla markii video soo gasho ay woo soo tiraahdo oo isla markii ani iga soo daba hadasho waxa ka qurux badan inay tiraahdo wiilka hal ii daayo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحابتي بقالي سودا وانا فرح قناة يوتيوب كان قدام وتعدى واهي قفكي فرح قناة بليز لايك شير كومنت سبسكرايب نو سميت نقول حسبتي سودا ودان كو حسبنا لنا سودا وي ما انت فرحيه كبا يرا او كبا لا دول مرسي ارحان درا بل نلا داو muuqaal kan oo nala dhamay sharaf iyo ciise buu mudan yahay arintaasna way dhamaatay anna waa ka soo hadlay asna waxa weeye si sharafan iga soo hadlay marka hawsha halkaas ku dhamaatay gabadhaas walaashay iyo hawshiisa iyo wiilkaas sida looga dhamaado taas sharaftu khabaroo sheegay ama ku andacooday in uu dhameeyay problemkii isaga iyo xaaskiisa fihima ama social media oo maalmahan aad ugu kacsanaayeen khadar farxiyo kaba yarana su'aalo iyo jawaabo iyo wax aad u fara badan runtii social media ama murtimaal oo ah channelkiisa uu ku leeyahay YouTube-ka oo muuqaalkan oo dhameystiran hadda aad ka soo daawan doontaan farxiyo kaba yar halka iyada akabaha ayaa oo kula dul maray khadar bal farxiyo kaba yar ma soo jawaabi doontaa khadarna hadalkiisa isagoo sii wata muxuu sii leeyahay in la dhameyso muuqaalka taas waxa way wanaagsan sida qofka wax garanaya ma ka laaya si u garay laakiin aniga oo magaceeda ku soo gabaday aniga oo mataqaana fanaanadii qaaliga ahayd soo sheegay aniga oo dhan walba ka qanacsanaa aniga oo ay sharaf ii ahayd maanta khadar dagaalka xaaskiisa fihima waxa uu ka faa'iiday share badan views badan like badan iyo subscribe badan sida uu mar walba uu afkiisa ka sheegayo sababtoo ah waxa soo qaatay dad badan oo aad caan u ah baraha bulshadana ku jira bal khadar oo hadalkiisa sii wata ay leedahay inuu caan igu raadiyo rabaa khadar inuu saan yeelo rabaa waxaan hubaa oo aan halkan ka cadeynayaa inaaba sidaas adigu iska riix baa leedahay aaba sidaas share aad iigu samaysay sidaasna aad adigu mataqaanaa magac qurux badan iigu samaysay magac inta ii bixi mar walba waxa uu ku soo celinayaa labadii kalmadood ee uu dhahaba waxa uu ku sheegayaa farxiyo kaba yar in ay wax badan noloshiisa uga tartay waxaasoo ah in ay sharcod weyn oo lacag la'aan ah walow youtuberada ay lacag qaadanay farxiyo kaba yar hadalkeeda waxa uu ka soo bixi jawaabo aad culus sharaf ay tahay in aan intaan soo qaatay iyadu iska riixayso ay leedahay ilaa waxa way khadar lama soo xiriirinaysaa tanamiyeen muhiim ma aha inaan maanta farxiyo kaba hadlayaa saasaan sameynaya raaligelin baan bixinayaa muhiim ah muhiimaddu waxa macna ii samaynaysaa aniga markay iga soo hadasho markay video ayada ay leedahay ay baraha bulshada ku soo faafiso oo ay tiraahdo ninkaas waxaas ha lagu sameeyo sidaas ha la yeelo waxa weeye intaas waa magacayga filanaan runtii ma ka ma sha Allah khadar qosol iyo dhoola cadeyn isku daraya ayaa farxiyo kaba yareed jawaabo fara badan halkan uga diraya oo sida waranka ku ganaya kuna dhahaya anigu hadalkaaga waxaan ka helayaa faa'iido aad iyo aad badan hawshu ay ugu adkaatay raaligelin la bixiyo gacmaha taagtay khadar barta uu ku leeyahay youtube-kiisa ayaa uu soo dhigay murtimaal hadda waa youtube-kiisa murtimaale ayaa uu soo dhigay in uu qaldan yahay raaligelin buuxdana uu siiyay dhammaan shacabka Soomaaliyeed iyo xaaskiisii hore arrinkiisana la dhameeyay soo hadalka sii wata bal magaceeda markaan soo qaatayna waxay iga ahayd inaan yacni bulshada isaga difaacay in dad wanaagsan ila soo xiriireen oo yacni kacdoonka markaa jiraan ku daminayay si loo yiraahdo anoo magaceeda kor u qaaday maadaama ay iga waday waxaan yidhi dad badan ila soo xiriiray sidaas ayaana magacaaga ugu soo daray meesha dhaqankeena
mar waliba khadar waxa uu ku celcelinayaa fariinta uu u dirayo Farxiyo Kabayare fanaanadeena Farxiyo Kabayare oo aad iyo aad adag uga soo hadashay arrinka khadar iyo xaaskiisa Fahiima bal khadar haddaba fariimahan badanaa u dirayo ma isku mid ba mise waa kala gaar bal aynu sii dhugano ila daawo aan isku nimaano halka aanu feer isu duubano laba nin baynu nahay ximiyaha mise saddexna inaan waxa khadar Farxiyo waxa uu sheegay ama uu ku tilmaamay in ay laba nin yihiin waxaanu ku weydiistay feer ma isku duubanaa qaab kaftan ahaana bal khadar hadalkiisa sii watana aan daawo qofkaasna saas waaye aan laga dhameeyo in wax loo sii wado aan garanayo Soomaali weyn Soomaaliya marka waxa weeye si daaya dad baa waxa weeye islaaya dad baa gabdhaha yaryar oo saddex jir ah kufsada yani waxyaalaha dunida ka dhacay anigu qof ma dilin qof ma dhaawicin waa warkii hore war soo dhaaf marka uu khadar leeyahay anuu qof ma dilin qof ma dhaawicin qof waxba ma yeelin qofna hadda ma haysto maxaa uu hadalkaa isaga uga jeedaa ama Soomaali haddaynu nahay rogrogno daa ay kula noqonaysaa miyaanu khadar dhaawicin qalbiga xaaskiisa yani xigmad aan kaga dhamaan waa maya bal muxuu yahay gabagabadii dhalinyarada kale oo soo wadwada oo sheegay wadwada waxaan leeyahay hawlihiina iska wata saaxiibkii Shiine Culo uu ka yahay Shiine waxaan leeyahay Shiine walaal qaali aad baa umahsan tahay arrinka sida ahay baasaboor iyo arrimaha iyo nin gurigiisa inaa ka sheekaysin dee waa ku maangaabnimo sida xaqiiqda khadar oo sheegay Farxiyo inay maangaabnimo ku tahay in ay soo dhex gasho arrimaha faamiliyada Farxiyo oo marka horeba ka digaxanaysay ama ka hadasha xaaladda dumarka ay ragga Soomaalidu ku hay haddaba Farxiyo ahaan iyada oo jawaab aad iyo aad u culus loo soo diray oo uu khadar u soo diray sidee ayaa ay uga hadli doontaa Farxiyo ma aamusi doontaa ma kula tahay kolow aniga maya bal Farxiyo iyo jawaabaheedana muuqaalka dambeeynu ku eegi doonaa khadar aynu muuqaalkiisa si fiican u dhugano comment caafimaad qabnaa soo qorno daawasho waa kama sheekayn karee xoogaa bal hadda bariis xataa iga raadinaysid si qurux badan wax u raadiyo iga deji bahasha ilaahay ceebtana haasto hays aabeynina oo idinka hawsha hasii balaarin bal haddaba khadar maxaa uu fariin u diray ama uu u diri doonaa abaal bir ah isagiyo Fahiima arrimihiisa ama arrimahooga dadka ka hadlayay ama ku dhex jiray dad caana iyo dad aan caan ahaynba bal Soomaali maxaa uu hadal ugu dhamay waxay tiri Farxiyo shalay wuxuu arkay bay tiri haddaba khadar hadduu Soomaaliga si walba uga hadlay u rogrogay u qaadaa dhigay dadkii isaga taageeray muxuu u abaalguday hadda waa soo daawatay maantadaas ayaa u tiriyay bal khadar hadalkiisa sii wata haddana wuxuu yidhi khadar kor u socda ma dareemayaa marka sheer aan abaalku ugu hayn Farxiyo inta ii samayn lahayd arrinta aan asiga faraha uga baxay balaa nin gurigiisa inaan ka sheekaysan waxa weeye adoo fanaanad Soomaaliyeed adoo fanaanad qaran ah adiga oo yaa magac dheer bulshada ku xilay inaad wiil yar oo walaalkaa maanta hadda meel ku xagad wax ma samaynayso
khadar oo farxiyo kaba yare hadallo badan oo waano xaaladeyda waa tahay hanjabaado sharaf ay tahay in ay wadoodo faan sharaf ay tahay in ay wax sheekayso walba sharaf isku ay dhex tahay jira xumaan iyo samaan ba aniga mataqaana waxay dhinac walba Soomaaliga kaga yimid khadar maanta farxiyo kaba yare jawaabo aad iyo aad culus buu mustafa markuu maanta qof bulshada ka sheegan baan sidee uu soo jawaabi doontaa markuu maanta ka soo hadla aqoonyahan samatar oo kale ka soo hadla bulshadii baan ka dhex muuqanaya waa qof hadal soo dhegeysanaya asxaabteeda qaaliga dee khadar iyo amuurihiisa iyo xaalkiisa iyo siduu jawigu ku jiro hadda dee waa aada la socotaan runtii wax maaragtay laga sheekeyn karo maaha farxiyo kaba yarana halkaa iyadaa kabaha ayaa uu khadar la dulmaray uu ku dulduliyay dee asxaabteeda qaaliga marxalad